ururka samafalka Soomaaliyeed ee Alpha Trust ayaa deeq raashin gaarsiiyay qaar ka mid ah dadka ugu jilicsan ee ay saameeyeen fatahaada biyaha webiga Jubba ee magaalada Baardheer ee gobolka Gedo. Deeqda ururka Alpha Trust ayaa waxa ay ku soo deegnaysaa xilli adag oo ay wajahayeen dadweynaha ku nool magaalada Baardheer dhibaatooyin ka dhashay fatahaadaha. Qoreysho Aadan Cumar oo ah gudoomiyaha ururka haweenka degmada Baardheer ayaa ugu mahadcelisay hay'adda Alpha Trust gargaarka raashineed ee ay keentay magaalada Baardheer iyadoo sheegtay in gargaarka noocan oo kala in wax weyn uu ka tariyo nolosha qoysaska ku barakacay fatahaadaha uu sameeyay webiga Jubba ee mara degmada Baardheer. magacaygu waa Qoreysho Aadan Cumar ahna gudoomiyaha ururka haweenka degmada Baardheer wakiil ka ah gudiga madaxa banaan ee gargaarka iyo masiibooyinka gaar ahaan waxa waaye gudoomiyaha xogeenka gudigaasna waan ahay waxaan mahad u celinayaa oo aan hambalyeynaa ama mahad celinayaa ururka samafalka Alpha Trust oo fadhigiisu yahay magaalada London dalka Ingiriiska waxay noo keentay ururkaasi waxay noo keeneen deeq isugu jirta sokor bariis bur timir iyo saliid waxa ka faa'iideystay dad masaakiin ah oo aad u dhibanayaal ah baahi haysay dadka ka faa'iideystay aad iyo iyaga macnaha u faraxsanaayeen annaguna waan u hambalyeynay hay'adda Alpha Trust waxaan leeyahay intaan iyo ka badan baan ka sugaynaa hadii Ilaahay idmo aad iyo aad baan u mahadsantihiin hawshaasna waxay ahayd hawl aan markaan anagu aan fiirinay ama anaga degmo ahaan ay tahay mid aan aad u soo dhaweynay. sidoo kale qaar ka mid ah dadka ka faa'iideystay gargaarkani ayaa ka mahad celiyay deeqda maanta loo qaybiyay raashinka haf bur bariis timir saliid sokor dadka biyaha galaynahay alxamdulillah shukr ilaahay ka mahadiyaan alxamdulillah rabbil caalamiin maanta waxa ilaahay mahadiisna waa in nala siiyay raashin waa alla mahadiis insha Allah wuxuu ku mahadsan insha Allah anagana waxa insha Allah waxa rajaynayna sidaas islamad hadan in dib loo siin doono annaga oo joogna degmada Baardheer oo nahay dadka biyagalka raashin aad u qiimo badan ayadoo bisha Ramadan lagu jiro ayaa waxa ka helay raashin insha Allah ayadana waa aad baan anagu ruuxaha u noolaanay maahan markii ugu horeysay ee ururka Alpha Trust oo howlo samafalaha ka fuliyo deegaanada hoos yimaada gobolka Gedo iyadoo horey uu ururka Alpha Trust u hirgeliyay barnaamijyo gurmadka degdega iyo kuwa adeegyada aasaasiga ee bulshada. Axmed Cumar Saalixi TV Universal Baardheer.